wax ku kaco rabbina aqbalo waa rumubaan waa qulaasada falsafada ay ku dhisan tahay guud ahaan riwaayadda ama sheekada caanka ah ee Alkhimiyai taasoo uu qoray qoraaga reer Brazil Paulo Coelho. Dhadhamis waa barnaamij hadafkiisu yahay soo dhaweynta dhigaalka iyo dhiirigelinta dhalinta waxaana ku soo gudbin doonaa midda murtida ku jirta hadba buuggii aan u aragno inuu xambaarsan yahay macno iyo maandhis. haddaba si ay kuu soo gaarto xalqad kasta ee cusub fadlan subscribe dheh channelka lana wadaag saaxiibada. Assalaamu calaykum, aniga waa Baalwaasuge ku soo dhawaada barnaamijkeeni Dhadhamis oo soo raagay dabcan sabab safar oo aan galay aawadi. Ha yeeshee waxaan dhab u leeyahay saaxiibada sugaysa Dhadhamis hilow haddaad ii qabtaan hamuun ayaan idin qabaa. inta kadib buugga aan idin sido maanta ayaa ah riwaayadda Alchemist ama Alkhimiyai taasoo laga tarjumay 180 luuqadood halka lagu dhaxbaahiyay 180 dal. sidoo kale waxaa laga daabacay in ka badan 225 milyan oo nusqo. waxaana loo aqoonsaday qoraaga buugga Coelho inuu yahay qoraaga kaliya ee isaga oo nool buuggiisa laga turjumay cadad intaa la eg. dhanka kale waxa uu noqday Alkhimiyai buugga lixaad ee adduunka ugu iibsiga badan inta buug la qorayay taariikhda aadanaha kaasoo si baaxad leh ugu faafay caalamka kana mid dhigay Paulo Coelho qoraayaasha u caansan adduunka. sheekada Alkhimiyai waxa ay ka hadlaysaa nolosha arijire Spanish ah oo lagu magacaabo Santiago kaasoo isagoo jooga baadiyaha Spain dhowr jeer ku riyoonaya kansi ama maalin hel ah oo ku duugan ahraamaadka Masar. kadib isagoo ka walaacsan sida uu ka yeeli lahaa riyadan ku soo noqnoqotay ayuu Santiago la kulmi islaam faalaley ah iyo boqor lagu magacaabo Salim kuwaasoo labaduba ku dhiirigelin inuu raadsado kansiga si uu u noqdo dabcan maalin taajir. arijire Santiago waxa uu iska iibin arigiisa yaraa waxa uuna qaadan dhammaan kutubtiisa isagoo galaya safar uu ku raadinayo rumaynta riyadiisa. waxa uu bilaabay socdaal dheer isagoo ka bilaabaya dabcan baadiyaha Spain waxa uu soo marayaa saxaraha Morocco kadib Masar ayuu sida ku iman. ha yeeshee inta uu wadada socday waxa uu la kulmi xaalado kala duwan sahaydo laga dhaco dagaal qabiileed iyo gabar uu ku jeclaan saxaraha balse intaasi kama hor istaagayaan inuu sii raadgaro riyadiisa. sidoo kale waxa uu la kulmi Santiago nin la yiraahdo Alkhimiyai kaasoo ah mid yaqaan waxyaabo aysan aqoon dadka caadiga ah. waa mid macdanta caadiga ah u bedela yacni mid qiimo leh sida birta oo loo bedelo qalin nuxaaska oo laga dhalaaliyo dahab iyo wixii la halmala dabcan. dhowr jeer ayaa Santiago laga dhici dhammaan hantidiisa ilaa markii dambe uu quus ku dhawaado balse Alkhimiyai ayaa dhiirigelin waxa uuna siin dahab uu jidmar ka sii dhigto si uu riyadiisa u xaqiijiyo. rafaad dheer kadib Santiago waxa uu iman ahraamaadka Masar halkaas ayuuna ka bilaabay inuu qodo goobtii uu riyada ku arkay. isagoo qodaya goobta ayaa waxa dul iman koox qowleysata ah kuwaasoo ka qaadanaya wax alle wixii sahay ah ee uu sitay iyo dahabkii yaraa ee uu soo siiyay Alkhimiyai dabcan. ha yeeshee mid ka mid ah tuugada ayaa inta gadaal u soo jeesto ku oranaya doqomada oo kaliya ayaa rumaystay riyooyinka anigaba sanad ka hor waxaan dhowr jeer ku riyooday kansi ku duugan baadiyaha Spain geedka hebel oo ku dhex yaala dhismaha qadiimka ah ee fulaan. waaba halkuu Santiago ariga ku raac jiray dabcan. aad ayuu ugu farxay Santiago hadalka ninkaas sidii ayuuna u tiigsan geedkii uu hoos seexan jiray. markii uu qodana waxa uu ka heli sanduuq dahab iyo mujawharaad ah oo ka dhigan dabcan kansigii oo dhul shisheeye ka raadiyay una maray dartiis intaas oo dhib ah kaasoo asal ahaan yaalay meesha uu ariga ku raac jiray. sida ayuuna maalin taajir ku noqon. qoraaga inta uu sardinayo sheekada waxa uu ku soo bandhigi buugga mabaadi qiimo badan kuwaasoo ku habboon in qof walba laabta ku hayo inta uu la hardamayo nolosha oo uu ku jiro halgankeeda. mabaadi'da uu qoraagu soo gudbinayo waxaa ka mid ah ku dheh qalbigaaga ka cabsashada dhibta ayaa ka xun dhibta oo loo bareero. ugu dambeyn waxaan si dhab ah u aaminay in Coelho yahay maalin taajir balse uusan la iman wax sida lagu darajeeyo. yeelkeedsa buugga Alkhimiyai ayaa natiijadiisu tahay ha quusan ee dadaal ilaa aad ka guulaysato
sidoo kale waxyaabaha ku qarsoon sheekada buugga waxaa ka mid ah in qofka axyaanan uu guusha ka raadiyo meel ka fog iyadoo ay taallo hoostiisa. taasina waa mid ka mid ah wararka haysta jiilka maanta jira oo aan aqoon jihadiisa balse raba inuu gaaro wax loogu yeero heer. buugga oo runtii aan ka filayay inuu intaa ka nacfi badnaado ayaan haddana ka marnayn macno iyo maandhis. sidaa awgeed intiinii wax ku akhrisa af Ingiriiska waxaad ku raadin kartaan ciwaanka Alchemist, inta wax ku akhrisa Carabigana Alkhimiyai. saaxiibada afka hooye wax ku baartana waxaan filayaa inay dhadhamis ku kaaftoomi karaan inta laga turjumayo. ka hor inta aanan ka bixin, mar haddaad intaa ila soo gaartay waxaa muuqata inaad tahay saaxiib tixgeliya dadaalka aan dartii u bixiyay. ha iloobin inaad subscribe dhahdo channelka, share-na u dhahdo saaxiibada kale. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.